waxaanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta daasoon oo aynu daaha kaga qaadayno sababta Iiraan ahmiyadda gaarka u siinayso joogitaankeeda ciidan ee laba tuulo oo ku yaala gudaha Suuriya iyo waxyaabaha loo aanayay inay dhalisay qorshaha cusub ee Mareykanku ku sii ballaarinayo ciidamadiisa ku sugan gobolka Bariga Dhexe ku soo dhawaada barnaamijka. dhawaanahan mas'uuliyiinta dalka Ruushka qaarkood waxay ku celcelinayeen inay xaaladda dalka Suuriya ay u jeesatay dhankii deganaanshaha iyo xasiloonida marka laga reebo deegaano ku yaala waqooyi galbeed Suuriya. laakiin inkastoo ay warbixinaha noocaas u muuqdaan kuwo xilligoodii ka hor dhacay oo ay wax badan oo xilligan dalka ka dhacaya muujinayaan in dhibaatadii weli ka taagan tahay halka ayna dagaaladii toddobaadadii u dambeeyay ka dhacayay magaalooyinka Xamaa iyo Idlib iyo agaarka magaalada Xalab ay keeneen barakaca dad rayida oo gaaraya 200,000 oo ruux ugu yaraana 1,000 qof ay ku dhinteen muddada toddobaadada ah gaar ahaan colaadihii ka dhacay waqooyiga magaalada Xalab oo ay mucaaradka hubaysani isku dayayeen inay dib u qabsadaan tuulada Tulcafar oo ah tuulo u dhaxaysa magaalooyinka Nabil iyo Sahra oo ay degan yihiin qowmiyadda Shiicad oo maro jidka weyn ee magaalada Xalab ku xidha xuduudda Turkiga. iyadoo ay Turkigu doonayeen inay Ruushka heshiis kala galaan isu furitaanka isu socodka magaalada Xalab iyo xuduudda Turkiga si uu dhaqdhaqaaqa ganacsigu ugu suuro galo ayaa haddana taasi u suuroobi weyday sababo la xiriira joogitaanka maleeshiyaad Shiica oo ay joogaan tuulooyinka Nabil iyo Sahra ee jidka ku yaala. barnaamijkeenana waxaynu ku eegaynaa sababta ay Iiraaniyiintu ahmiyadda intaa leeg u siinayaan gacan ku haynta labada magaalo ee Nabil iyo Sahra oo ka tirsan gobolka Idlib. dadka la socda xaaladda amni iyo siyaasadeed ee gobolkaasi waxay qabaan inay halkaa yihiin dhowr sababood oo Iiraan ku riixaya inay ku deganaato oo gacanta ku hayso ciidamadeeduna ku sii sugnaadaan labada magaalo ee ku yaala waqooyi galbeed Suuriya ee kala ah Nabil iyo Sahra kuwaas oo u dhigma saldhigyo ay leedahay xarun iyo calaamadna u ah joogitaankeeda military ee dacallada waqooyi ee magaalada Xalab. sababta kale ee Iiraan u joogto labada magaalo waa sidii ay uga hortagi lahayd inay mar labaad dhacdo qisadii sanadkii 2015 ay kooxaha Sunniyiinta ee mucaaradkii ku go'doomiyeen oo isku xeereen labada tuulo oo dadka ku nool lagu qiyaasay 7,000 oo qof. markii dambena lagaga qaaday go'doomintii heshiis ay Turkiga iyo Ruushku dhexdhexaadinayeen oo dhex maray mucaaradka iyo xukuumadda Suuriya. waana dadkii Shiicada ahaa ee tuulada ku noolaa ee khasab noqotay in bartamihii sanadkii 2018 laga soo daadgureeyo tuulooyinka lana geeyay goobo kale oo ay xukuumadda Suuriya gacanta ku hayso oo ku yaala isla gobolka Xalab iyadoo soo daadgureynteeda la dhaafsaday dad Sunniyiin ah oo ay duleedka magaalada Dimashq ku go'doomiyeen militariga xukuumadda Suuriya iyo dagaalyahanno ka tirsan ururka Xisbullah. dhanka kalena iyadoo heshiisyada ay sida gaarka ah Turkiga iyo Ruushku uga wada galeen gobolka Idlib oo ah heshiisyo aan Iiraan waxba lagaga siinin gacan ku haynta deegaanada gobolkaasi ayaa waxay doonaysaa inay labada tuulo ee Nabil iyo Sahra oo dadka deegaanka u ahi ay madhabta Shiicada haystaan ay ka dhigato xarunta joogitaankeeda ee gobolkaasi Idlib. waana xilli ay warbaahinta Suuriya qaarkeed ku waramayso in madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad uu ka dalbaday Iiraan inay raxanta maraakiibteeda dagaalka ka rarto dekedda ugu weyn ee dalkaasi leeyahay ee Laadiqiya. waana dalabka ay ganafka ku dhufatay Iiraan oo aaminsan in dagaalkii lagu jabiyay mucaaradkii Suuriya ay gacan weyn ku leedahay sidoo kalena ay ciidamadeeda iyo maleeshiyaadkii ay ka soo ururisay bartamaha iyo galbeedka Aasiya ay naf iyo maal badan oo kaleba ay ku weyday dagaalkaasi Suuriya. waana xilli ay qiyaasihii u dambeeyay ku saabsanaa qaxootiga Suuriya caalamka ku filaqsanay ay muujinayaan 75% ay danaynayaan inay maalin uun ku noqdaan dalkoodii hooyo. waana daraasad ay samaysay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo muujinaysa inay dadkaasi ku tala jiraan ku noqosho dalkoodii laakiin ay u baahan yihiin muddo kale si ay ugu dhiiradaan ku noqoshada Suuriya oo ay haatan ka aaminsan yihiin inay colaadihii sidii uga socdaan amniguna yahay mid aanay dadka rayidka ahi isku halayn karin.
waana xilli aan inta badan qaxootiga suuriya dalalka ay joogaan ku haysanin degenaashihii ay u baahnaayeen, caqabado badanna ka hor yimaadeen, gaar ahaan dalalka carabta, halka ay iskaga hor yimaadeen qawaaniintii xukuumadaha dhexe ee dalalkaasi u dejiyeen ku noolaashaha qaxootiga ee waddanka iyo qawaaniintii kale isla mawduuca ku saabsanaa ee ay dowladaha hoose iyo golayaasha deegaanadu ka leeyihiin arrintaas. waxa kale oo ay suuriyiinta qaxootiga ay la kulmaan dhaqamo cunsurinimo oo mararka qaarkood ay kula kacaan qaar ka mid ah dadka u dhashay waddamada martigeliyey, gaar ahaan bariga qaaradda Yurub, iyadoo ku noqosho ay dalkoodii dib ugu laabtaana weli u tahay rajo fog, maadaama ay cududo militari oo waaweyn weli ku legdamayaan gacan ku haynta gobollada iyo degmooyinka Suuriya sida Ruushka, Maraykanka, Turkiga, Iiraan iyo xukuumadda Suuriya lafteeda, ayna halkaa ku sugan yihiin maleeshiyaad ajaaniba oo aadna u hubaysan iskana soo horjeeda. waana xilli ay Maraykanka ka sii baxayay Suuriya oo xiisadaha soo kordhay dartood u sii nagaaday. Generaalka u sarreeya ciidamada Maraykanka ee gobolka bariga dhexe ku suganna ku dhawaaqay Isniintii maanta inay Maraykanku ka fikirayaan sidii ay u sii ballaarin lahaayeen joogitaankooda ciidan ee gobolkaasi. tallaabada oo ka soo horjeeday istaraatiijiyaddii xukuumaddii Trump ee ku dhisneyd khafiifinta iyo hoos u dhigista joogitaanka militariga Maraykanka ee dalalka badaha ka tallowsan. dhammaadkii sanadkii horena Maraykanku dib ugala bixin gantaalahoodii difaaca ee Patriot-ga ee yaalay dalalka Kuwait, Bahrain iyo Urdun, ciidamadoodii joogay Suuriya iyo Afghanistan si weyn hoos ugu dhigeen. haatanse uu taliyaha saldhigga dhexe ee wadajirka ah ciidamada Maraykanku ku leeyihiin bariga dhexe General Frank McKenzie uu aaminsan yahay inay lama huraan tahay in la sii ballaariyo joogitaanka militariga Maraykanka ee gobolka bariga dhexe si loo helo mar walba ciidan ku filan inay jawaab bixin karaan. waxaana intaa ku daray in fikraddan ay ka dhalatay dhowaan hadidaadihii ay Iiraan ku weerari lahayd maslaxadaha dalka Maraykanka ee gobolka bariga dhexe, hadidaadaha oo ku sifeeyey inay ku baaqdeen soo kordhintii ciidamada Maraykanka ee gobolka darteed iyo soo gaaritaankii uu markabka dagaal ee Abraham Lincoln soo gaaray mandaqada Khaliijka.